maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo soo qaban qaabisay Dhinaysaana deeqa aadan waqaf oo ah gudoomiyaha cisbitaalka Dr. Xawa oo ku yaala magaalada Burco ee gobolka Togdheer taasoo lagu soo bandhigay kulan wacyi-gelin oo lagaga hadlayay isla markaana bulshada Burco lagaga wacyi-gelinayay dhibaatooyinka cudurka kansarka waxaana kulankaasi wacyi-gelinta ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee gobolka Togdheer ugu horeyn waxa halkaasi ka hadashay Dhinaysaana deeqa aadan waqaf oo ku dheeraatay dhibaatooyinka cudurkaasi kansarka iyo sidoo kale qaabka looga hortagi karo waxaan rajaynaynaa iridaan aan furnay inay dan u tahay wadankeena Somaliland in ay dan u noqonayso strategic point Burco in laga furo center cancer loogu hadlo lagu wacyigeliyo research lagu sameeyo centerka waa derbi iyo miis iyo kursi centerku wuxuu u baahan yahay inaan jeebkeena ku dhisno bishana shaqeynayna umada free lagu shaqeeyo centerka it's not for profit gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac maayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale ayaa Dhinaysaana deeqa aadan waqaf uga mahadnaqay wacyi-gelintaasi ku saabsan cudurka kansarka iyo dhibaatooyinkiisa deeqa waxa qabatay shaqo aad gobolkan iyo qaranka uga maqnay oo aan oran karo meel maanta laga bilaabay inay yartay qof kansar kaga dhacan baa garan kara dhibaatada uu leeyahay dumarka halkan fadhiya waxaan filayaa in aan in badan ka wacyigelin qodobkan ay maanta isugu nimid oo kullayba gundhig u ah in la isku wacyigeliyo in caafimaadka la ilaashado shareecadu meel ay ka tagtay ma jirto in waxa weeye dumarka lagu wacyigeliyo waxyaabaha maaragtay aan caadiga ahayn haday arkaan isla markaba in ay dhakhtarka tagaan waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa Dhinaysaana deeqa intii hadaan nahay maxadka caafimaadka anagu deeqa deewaanu la shaqeynaa breast cancer waxyaabaha ugu badan ama kansarka guud ahaanba aynu dadka aynu ku wacyigelin karnaa waxa weeyaan in early stage-ka ugu horeeya ay dadku ogaadaan anigoo ka matalaya dahabshiigu shirkadu inay kolay Dhinaysaana deeqa ay kolay gacan ka geysatay oo ay kala qayb gashay xafladan hadda kolay doctoradu aad iyo aad u mahadsan tahay runtii waana laga maarmaan inaynu had iyo jeer caafimaadkeena aynu la soconno iyo xaaladdeena hadba stage-ka ay marayso xanuunada kala duwan ama mowduuca caawa halkan presentationadiisa iyo wacyigelintiisa lagu soo bandhigayo ha noqoto ama se xanuunada kale ee bulshadeena ay la nool yihiin ha noqoto mid kastaaba wuxuu u baahan yahay in heerkiisa uu taagan yahay iyo saameynta uu bulshada ku leeyahay laga wacyigeliyo Dr. Xawa Cabdi iyo tiimkeeda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa programkan ama wacyigelinta runtii muhiimka ahaa ee caawa inoo soo diyaariyeen waxaan leenahay jazakumullahu khayran programkan ama wacyigelintan in runtii lagu wacyigesho siiba dumarka ayuu kale dabcan iminka uu khuseeyaa Khaliil Barraawran warbaahinta qaranka Somaliland Burco.